Okay, only for love. Jecel keli waaye. Two donkeys lawa dameero kuwaasoo waa ay ahaan jireen friends saaxiibo. Met waa isla kulmeen at a crossroad wado. One donkey hal dameer was healthy caafimaad ayuu qabay. And iyo the other kii kalena malnourished waa nafaqa daro bahaysay. The healthy donkey dameerkii caafimaadki lahaa asked wuxuu weydiiyey the weak one kii oo the nafaqa darada haysay, what happened, maxaa kugu dhacay to you adiga? Why do you seem, maxaad u muuqataa so weak, mid oo daciif ah? The weak donkey dameerkii daciifsanaa replied uu ka jawaabay, my master sayidkayga ama macalinkayga makes me work shaqo ayuu iga dhigay the whole day maalinta dhan iga shaqaystaa. And iyo he doesn't give me imasiyo enough food ration igu filan to eat inaan cuno. And iyo also sidoo kale beats me wuu iga raacaa. Oh, exclaimed the healthy donkey dameerkii caafimaadka lahaa wuu yaabay. Then kadib, why don't you run away, maxaad ugu soo arari waysay from your master's house guriga sayidkaaga? He replied uu ka jawaabay, I think waan u malaynayaa mise waxaan filayaa my job shaqadeeda has better prospects, rajo wanaagsan inay leedahay. Prospects waa rajo. My master sayidkayga beats his only daughter gabadhiis keli inuu garaacayaa too sidoo kale. And iyo whenever xilli walba he does so markii u garaaco, he says wuxuu dhahayaa to her ayada, I will marry you off to this donkey, dameerkan ayaan kugu dari doonaa ayuu dhahayaa. mar alla markii asaga i garaaco wuxuu dhahayaa gabadhiisa dameerkan ayaan kugu dari doonaa. For this reason, sababtan awgeeda, I am not running away, inaan ordo dooni maayo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaalayaal ku soo dhawaada casharada kale ku soo xigaba.